قلب النور يا إني يدوتشي نسبي لجرتاي سماي نباي وما إلى نعاين ولا شيء دي رجنا حياي نولي دساي نفتاي هوراي نحاريس دارين ونارورا بدن حسك النوغل تساي نسياي كبار باتيا إن بريق تيراي نعابيق هيراي نعاو كالقعد ونعف وذن كشنو تياي نشادي التراي نسيبكي تغضي ونلقي بحي نبت صبحي ونقيداي كالنادي فيا النص إيقاميدا نذاري لك لا يحذي نبت الساي نسقنتي الدني نقاشها جعيل قلب النوع قرحون كن نظامي نسري كاملا نذاري لك لا يحذي نبت الساي نسقنتي الدني نقاشها جعيل قلب النوع قرحون كن نظامي نسري كاملا باتيا إن بريق تيراي نعابيق هيراي نعاو كالقعد ونعف وذن كشنو تياي نشادي التراي نسيبكي نحلي باتيا إن بريق مانتا cunto aan aniga gacanteeda ku kariyo ayaan wada cunaynaa kuligeennaba qudaarta ayaan ka bilaabaynaa marka hore qudaarta caafimaad ayaa laga helaa abaay cusbada iska ilaaliya adiga cuntadana aad ayay u macaan badan tahay mama hal rooti aan u baahanahay bis rootiya okay waqsiinaya abaay kana fiiriya bis halaan eego okay بس كيسو دي بامر ما أختي نهارت عند كريس كان أيده إنه بريطانية مدة ذكر ماشي عند أيده كرنا سفرها يحكي دوسنا سا لكن سألوه مني ويدينا عند كريس يقول تهنا عند هاد كريس هو معان لكن كمان معان تنحاس كي جاي كريس أيده سيدي عند كرنت خطر وقتها أي حاسكي أنا غطر أو غطها عن تكريته. دماش أنا جوان بيسكوجا وحاسكي أنا دمانسيد حتى ما بين يدي يقول استدنا نيجا ودكتور أنت معان بدنا يدي كريه. أديك وقت في عنتها. رنتا ميا. لكن واحد تكون في عنتها متغنى هذا الكلام بس. نقدر دماشي. جانجا. هاي. جان في ملا هذا الشيء ما في عنتها أيضا. سيانا ويكدب تكتي هدي أي أتكتي إني هالمر إلى هذا الشيء سأيه إهد أنا إلى أن له الله نيد يمد جيسو جان في أيان كل ولاية هاي هذيك لون أنت ياب أياد ليه سيا فيري أنا هذا وان عاف ما سو موجود مركا صبح وتسكلها بنكرتها محاوى يا أبا يا ديك حوغير عافماد اسك درنتي انيغن واد درسا يا اخي انيغا عافمادكاغنا كتحدر halkan ma imaanin gurigaaga aad ay u weyn yahay marka ii ogolo maalmeer inaan ku baashaalo oo ku raaxaysto aniga hore ma diga diraysa mideed kale daawooyinka hadii aad qaad qandhadan ay ka jabto caafimaadkaaga taam ma aha maxay tahay madax adigan siya adiga maxaad waxbarashada iskaga haleynaysaana fiiri markii aad fasaxa imtixaan ka soo qaadatay markaa kadib iyo mooyaa أبايا أذيك أيام مدح عليك وضو محمد أنت رن نقول علني سنة ماشان استقطك مسي إماشيك أيام وكل وايا سيا موالنت أذيك سيدا بمودي سيد وحوم جيران دي أساس سيدا سهين محيط هنا يجي وحنو ملينا أذيك إدماشي أنا مقاسنا ديارستين أنا كنا أذيك سيا ساسما ملينا يا إن أنا إذن قصيص سيدا اسمها ما يدماشي رنهانت أنا لو وده أنا ما أذيك أيام كوده حدلي أرنت أمي قالوا لا شيء أمي قد دعوني سليانك ها وين كفتم يا أخي gurigiina ayaa laga soo wacay iyaga waxay rabtaa in adiga kula hadasho
adiga xitaa telefonkaaga soo wacan laakiin wuu soo geli waay igiraal noqo oo waan ilow aniga dab la'aan ayuu ahaa laakiin jaajar la'aan ma jirto anigana ma daarin halo ayayda ayaa rabta gabadheeda inay kula hadasho wayna kaa walwalaysay marka la hadal iyada ho halo gabadheeda janvi sidee tahayna ma fiican tahay adiga waan fiicanahay ayeeyo adiga sidee tahayna gabadheeda aniga aad iyo aad ayaan kuugu xiisay markii aan maqlay inaad xanuunsantahay aniga aad ayaan kaaga murugooda run ahaantii ayeeyo aniga waan fiicanahay xoogaa qandhale ay qabatay haddana waan fiicnaanayaa siyaa way issoo lugaysoo keliya marba haddii ay eeda ku imaatay dhib ma laha gabadhaydii adigana waad iska caafimaadaysaa eenase gabadhaydi waaya ayeeyo gabadhaydii ma faraxsan tahayna haa ayeeyo aniga aad ayaan u faraxsanahay aniga waxba ha iga welwelin keliya naftaada ka taxadir waayahay gabadhaydii mar kale ayaan ku soo wacay haddana telefoonka waan iska dhigaya waaya ayeeyo hayniid soo kuma degin gabadha ayay u tahay way faraxsan tahay soo ma arkin adiga haa waan arkay gabadheeda siday u faraxsan tahay waxaan rajaynayaa mar walba sidaas inay iigu faraxsanaato aniga gabadheeda janvi aad ayaan u jeclahay farxaddeedana waxaan rajaynayaa qof ka burburiyo inaysanba arkinba janvi may wacdayna waa maxay waxaan garbasaarka siyaa maxaa miiska cunnada keenay sheeg waxaa laga yaabaa inay ku ilowday laakiin adiga sideed ku ilowday aniga inaan jeclaa wax walba meeshood inay yaalaan adigii walaasha dhaqan xumada miyaa gurigiina ka soo baratan ii sheeg hadda kadib waan ka taxadarayaa hadda kadib maaha waqti xaadirkan ayaadba ka bilaabaysaa wax walba meeshooda waa inay ku hagaagsanaadaan sida loo hagaajiyo aniga hadda ku baraya adiga hay hay hadda waxaan kaa doonayaa waxaan oo dhan siday ahaayeen inaad u hagaajiso ya haddii hal shay aad ka qalada booskiisa hawshaada bilow ayay noqonaysaa ma fahantay dhaqso bilow hay maqal waan kala hagaajiyey waa maxay sidaan suudkii shatiga maxaad u kala hormarisay ii sheeg farqiga u dhexeey ma fahmi kartid aniga horaan kuugu sheegay haddii aad hal xabo qalado hawshaada bilow ayay noqonaysaa hadda waa inaad ku noqotaa dhaqso hagaaji ha dhagool maataa waxaan ku dhahay hagaaji dhaqso bilow hawsha ما دمست مسؤولي good job waad fiican tahay tan kale waxaa tahay qof wanaagsan oo maskax fudud anigana dadka caynkaas oo kale ah aad baan u jeclahay mideeda kale aniga waxaan rabaa sideeda oo kale inaad noqoto qof dhammaystiran ha inakan markaad soo bax sande waa daalan tahay inuu malaynaya aniga ku masaajayna waxbaa ka baqin ha sii jeeso
maxaa samaynaysaa adiga isdaji neef qaada cabsida dhaaf isdaji maxay tahay cabsidan lama baahna inaad cabsato adigood la socotaa xaaskii firaaj inaad tahay xaaska firaajna looma baahna in ay cabsato ma waxaad ka baqaysaa inaan ku ceejiyo lagama yaabo tan kale arrimeena looma baahna qof inaad uga sheekayso abaayo iska dhaaf wax walba aniga ayaa sameynaayo هلو نجام ها اديك واحد يسود ارتاف فلاش انا شخذها وكليه واحد انا واحد كله بدله اوكي abaayo wax ma ku weydiiyaan ها iweydii adiga si la yaab leh maxaad ugu dhaqmaysaana maxaad ka wadaane micnahayga waxyaalo yaryar ayaad ka walwalaysaa adiga midas ayaan la yaabanahay waxyaalaha hadda aad samaynaysid haddii ay halkan iyo halkaas ay yaalaan maxaa farqiga u dhexeeyana saxanka haddii uu kijada saaran yahay haddii uu miiska saaran yahay wax farqiga u dhexeeya ma lahan mideed kale maalmahan dambe adiga sida waxaad u dhaqmaysaa askari military ah ma aqaan wax kaa qaldan maya sidaad moodaysa waxba uma jiraan aniga ayaa waxaan jeclahay wax walba meeshii loogu talagalay in ay yaalaan dadka run ayay sheegaan guurka dadka wuu bedelaa bal fiira adiga sidaa wax walba ugu walwalaysid shay walba haddii uu meeshiis ka qaldamo adigana waad ka walwalaysaa abaay su'aal kale ma ku weydiin karaane iweydii run ahaanta su'aashan waxaa raba inaan dumaashigay weydiiyo haddana way ila xumaatay maxaa yeele adiga ayaa walaashii ah gurigan aadka u weyn oo sidan u qurux badan maxay ku dhacday in uu shaqaal la'aan ahaado adiga maxaa shaqaal lagugu keeni waaye جانفي دقسيا قيوان دهني laba daqiiqo la ii kaade maxaasaa dhan igu fiirinaysaa waxaan isweydiinayaa qof bini aadan ah siduu sidan dhan ugu qurux badnaan karaa ilaa heer qofkii fiiriya uusan ka jeesan karin bliis qalbiya oo galowna ku xira sooma daahayno maxay xafladdan oo dhan u sameeyeen waad la socotaa ani adiga haddaleen ba isguursanay soo ma fiicnaan lahayn xafladdan gebi ahaanba in la baajiyo oo la kasalo maxaa kugu dhacayna shaqaalahaaga ayaa xalfaddan noo sameeyey weliba arooskeena dartiis haddii aanaa u tegin markaas wuu naga xumaanayaa waa inaanu tagnaa ma fahante hadda adi gaariga soo saar anigana jikada ayaan alaabta kusii kala hagaajinayaa sidii aad saaka iga codsatay oo aad ii bartay fahamkaaga aad buu u fiican yahay adiga haddii ay sidaas tahay aniga xitaa waan ku raacayaa jikada ayaan kula gelayaa hawshana waan kula qabanayaa xoogaa romantigana meeshaan ku jireenna naga tag kaale yaaqe xalfadda waqtigeeda waa inaan tagnaa soo ma aha janfi adigu ma og tahay gurigan markii aad timaaday ayuuba iftiimay
maxaa yeelay aniga hore umaan arag qof sidaan oo dhan iiga fikira xaaladdeeda ogaada caafimaadkayga control su'aal ma ku weydiin karaana ha i weydiinin ee amar oo keliya cuntada maalin walba aniga ayaa karinaya laakiin shaqooyinka kale macnaheega waxaan ka wadaa nadiifinta iyo waxyaalahaas kale ka waran haddii aan shaqaale u qabsano shaqaale badan ma aha qof dumara iyo qof nina qofta dumarka jikada ayay iga caawinaysaa ninkana bannaanka ayuu nadiifinayaa midaas hadday noo suurta gasho labadeenna waqti ayaan isla qaadanaynaa nadaafadana ya nacas maxaad tiri shaqaala rabaa ma waxaad doonaysaa waxyaabaa noo gaarkaa qof saddexaad inuu ogaado war aniga waxaan doonayaa dadka oo dhan in aan kaa fogeeyo janvi nolosheenoo gaarkaa ma doonayo qof saddexaad inuu soo faragishto marka hore keligii ayaa noollaa haddana labadeenna ayaa nool mana rabo qof saddexaad labadeenna inuu soo dhex galo labadeenna bes ayaan noloshaan ku aaninaa macaankii qararkana waan qaybsanaynaa laakiin waxaa iga su'aala fikraddan xaggee ka keentay nin iyo naag oo shaqaalaha inaan guriga keensanin yaa kugula taliya ha fikraddan fooshaxun xaggee ka keentay na iga aamus ma waxaad doonaysaa berika maalin inaad waqti isla qaadataan labadiinna maxaa ku hadlaysaa aamus codkaaga sirig sharab iga aamus looma baahna markaa hadlaa inaa iga daba hadasho adiga sidaa u joogta maanta ma waxaad tiri nin shaqaalaha ii keen guriga ma nin shaqaalaha guriga keenaya haddana nin naag hadday halad xitaa waxba kuma dhiilan laakiin nin ayaad leedahay maskaxda xanuunaysa firaaj isdeji firaaj maskaxda deji relax nin shaqaala soo ma doonaysid noocadu baahan tahay nin dheera nin gaabana nin cada nin qurux badana nin noocadu baahan tahay afrikaan man kaaga dhigaa mise hindi mise soomaali yaan ku keenaa isheg ya waxaad leedahay maxaa samaynaysaa isheg aniga sideed ku keentay inaad idhahdo nin ii keen oo shaqaale ii noqdo ma waxaad doonaysaa inaad isla baxsataan berito xagee keenaad yaa isheg oo ku bariya sidaa makaa cararaayo haddaan adig isma raaci karna fiiri xafladna ma aadi karna janfi waxaan dhan maxaad u samaynaysaa sidaan samayso lama baana janfi maalinteena quruxda badnayd adigaa nooga cayaara janfi maxaad sidaa u samaysay oo ku bariya iska kiisiida hadabana miyaad oo ku bariya mar kale miidhahi soo maha shaqaala noo keen ani adiga bisa wada noolaani soo maha oo ku bariya qof kale mar kale ha igu soo hadal qaadin aniga markaas waan isbedelahay balano brow janfi iga raali noqo macan badane aniga marayg moogtay inaan dhibaato kuu geysto laakiin adiga mar kale sidaan oo kale ha yeelin haydhe maanta haddii uu dumaashiga imaado waxaan ka codsanayaa shaqaalooyin fara badan inuu keeno maxaa yeele adiga aad iyo aad ayuu kuu jecel yahay kun shaqaalood xitaa wuu kuu keeni karaa guriga dhan waa shaqaalo ka dhigayaa adiga arrimo shaqaale kale ma hadlaysid dhuunteeda ayaan kugu dhaariyey aniga soo kuma dhihin siyaa afkaaga mar dambe shaqaale kuma soo qaban karti may maqashaana abbaay adiga maxaa kaa khaldanna waxaad iska dhigaysaa qof haddii ay shaqaale afkeeda ku soo qaado uu ninkeeda dilaayo marka isdeji maya sidaad mooday ma ahan waxba ma jiraan isaga wuu iga codsaday xaqiiqdii markaan kaala hadlo maalinta u horeysay oo arooskayga ayuubay dhahay shaqaale ayaan kuu keen laakiin aniga ayaa diiday waxa waaye aniga ayaa waxaan jeclahay labadeeda gacmood inaan cuntada ugu diyaariyo shaqada guriga kalena inaan aniga qabto sababtoo ah middaas waqtiga ayaan ku luminayaa midda kaleeto arrimaha annaga khaaska noo ah ayaa haddii shaqaale imaado firaad maya aniga ayaana jecleen ma fahanteena sababta ugu weynaa waxay tahay waxyaalaha khaaskiidin ah in ay dadkiidinka ogaadaan maxaa yeele caruusada cusub ma ogolo arrimaheeda khaaska ah in la soo fargishto sidaas darteed ayaa anigana meeshaan iiga diraysaa laakiinse aniga middas ma ogolaanayo maxaa yeele waanba ka helaabo dadka isqabo dhan inaan laf dhungash u noqdo waa bahoolahayga waxaas abbaay wax ma ku weydiiyaan i weydii adiga si la yaab leh maxaad ugu dhaqmaysaana maxaad ka wadaane micnahayga waxyaalo yaryar ayaad ka walwalaysaa adiga midas ayaan la yaabanahay waxyaalaha hadda aad samaynaysid haddii ay halkan iyo halkaas ay yaalaan
maxaa farqiga u dhaxeeyna saxanka haddii uu kijada saaran yahay haddii uu miiska saaran yahay wax farqiga u dhaxeeya ma lahan mideed kale maalmahan dambe adiga sida waxaad u dhaqmaysaa askari military ah ma aqaan wax kaa qaldan maya sidaad moodayso waxba uma jiraan aniga ayaa waxaan jeclahay wax walba meeshii loogu talagalay in ay yaalaan dadka run ayaa sheegaan guurka dadka wuu bedelaa bal fiir adiga sidaa wax walba ugu walwalaysid shay walba haddii uu meeshiis ka qaldamo adigana waad ka walwalaysaa abaay su'aal kale ma ku weydiin karaane iweydii run ahaanta su'aashan waxaa raba inaan dumaashigay weydiiyo haddana way ila xumaatay maxaa yeele adiga ayaa walaashii ah gurigan aadka u weyn oo sidan u qurux badan maxay ku dhacday in uu shaqaal la'aan ahaado adiga maxaa shaqaal lagugu keeni waayey jaanfi dhaqsiya qaywaan dahnee 2 daqiiqo la ii kaade maxaasan dhan igu fiirinaysaa waxaan isweydiinayaa qof bin aadan ah siduu sidan dhan ugu qurux badnaan karaa ilaa heer qofkii fiiriya uusan ka jeesan karin bliis qalbiya oo galowna ku xiro maxay xafladdan oo dhan u sameeyeen waad la socotaa ani adiga hadda leen bas guursanay soo ma fiicnaan lahayn xafladdan gabi ahaanba in la baajiyo oo la kasalo maxaa kuga dhacayna shaqaalahaaga ayaa xalfaddan noo sameeyey weliba arooskeena dartiis haddii aana u tegin markaasuu naga xumaanayaa waa inaanu tagnaa ma fahante hadda adig gaariga soo saar anigana jikada ayaan alaabta kusii kala hagaajinayaa sidii aad saaka iga codsatay oo aad ii bartay fahamkaaga aad buu u fiican yahay adiga haddii ay sidaas tahay aniga xitaa waan ku raacayaa jikada ayaan kula gelayaa hawshana waan kula qabanayaa xoogaa romantigana meeshaan ku jireennaa naga tag kaale yaaqe xalfadda waqtigeeda waa inaan tagnaa soo ma aha jaanfi adigu ma og tahay gurigan markii aad timaaday ayuuba iftiimay maxaa yeele aniga hore umaan arag qof sidaan oo dhan iiga fikira xaaladdeeda ogaada caafimaadkayga kontarool su'aal ma ku weydiin karaana ha i weydiinin ee amar oo keliya cuntada maalin walba aniga ayaa karinaya laakiin shaqooyinka kale macnaheega waxaan ka wadaa nadiifinta iyo waxyaalahaas kale ka waran haddii aan shaqaale u qabsano shaqaale badan ma aha qof dumara iyo qof nina qofta dumarka ah jikada ayay iga caawinaysaa ninkana bannaanka ayuu nadiifinayaa midaas hadday noo suurta gasho labadeenna waqti ayaan isla qaadanaynaa nadaafadana ya nacas maxaad tiri shaqaala rabaa ma waxaad doonaysaa waxyaabaa noo gaarkaa qof saddexaad inuu ogaado war aniga waxaan doonayaa dadka oo dhan in aan kaa fogeeyo jaanfi nolosheenno gaarkaa ma doonayo qof saddexaad inuu soo faragishto marka hore keligii ayaa noolaa haddana labadeenna ayaa nool mana rabo qof saddexaad labadeenna inuu soo dhex galo labadeenna bes ayaan noloshaan ku aaninaa macaankii qararkana waan qaybsanaynaa laakiin waxaa iga su'aala fikraddan xaggee ka keentay nin iyo naag oo shaqaalaha inaan guriga keensano yaa kugula taliya ha fikraddan fooshaxun xaggee keentay na iga aamus ma waxaad doonaysaa beri ka maalin inaad waqti isla qaadataan labadiinna maxaa ku hadlaysaa aamus codkaaga sirig sharab iga aamus looma baahna markaa hadlaa inaa iga daba hadasho adiga sida u joogta maanta ma waxaad tiri nin shaqaalaha iyo keen guriga ma nin shaqaalaha guriga keenaya haddana nin naag hadday halad xitaa waxba kuma dhiilan laakiin nin ayaad leedahay maskaxda way xanuunaysa firaaj isdeji firaaj maskaxda deji relax nin shaqaala soo ma doonaysid noocadu baahan tahay nin dheera nin gaabana nin cada nin qurux badana nin noocadu baahan tahay afrikaan man kaaga dhigaa mise hindi mise soomaali yaan ku keenaa isheg ya waxaad leedahay maxaa samaynaysaa isheg aniga
sideed ku keentay inaad idhahdo nin ii keen oo shaqaalayno ma waxaad doonaysaa inaad isla baxsataan berito xageen ka raadiyay cararaya oo ku bariya sida ma ka cararaya hadaan adig ismada xagna fiir xafladna ma aadi karna janfi waxaan maxaad u samaynaysaa ina sidaan samayso lama baana janfi maalinteena quruxda badnay adiga nooga ciyaaray janfi maxaad sidaa u samaysay oo ku bariya iska kiisida hadaba ma yaqaan oo ku bariya marka la midey Soma shaqala noo keen ani adiga bis wada noolaan Soma oo ku bariya qof kale marka la igu soo hadal qaadin aniga markaas waan isbedelahay balan bro janfi iga raalay noqon maxan badan aniga maray moogteen aan dhibaato ku geysto laakiin adiga mar kale sidaan oo kale ha yeelinayde maanta dii uu dumaashiga imaado waxaan ka codsanayaa shaqaalooyin fara badan inuu keeno maxaa yeele adiga aad iyo aad ayuu kuu jecel yahay kun shaqaalood xitaa uu kuu keeni karaa guriga dhan waa shaqaalo ka dhigaya adiga arrimo shaqaale kale ma hadlaysid dhuunteeda ayaan kugu dhaariyey aniga soo kuma dhihin siyaa afkaaga mar dambe shaqaale kuma soo qaban kartid may maqashaana abbaay adiga maxaa kaa khaldanna waxaad iska dhigaysaa qof haddii ay shaqaale afkeeda ku soo qaado uu ninkeeda dilaayo marka isdeji maya sidaad mooday ma ahan waxba ma jiraan isaga wuu iga codsaday xaqiiqdii markaan kaala hadlo maalintii u horeysay oo arooskayga ayuubay dhahay shaqaale ayaan kuu keenay laakiin aniga ayaa diiday waxa waaye aniga ayaa waxaan jeclahay labadeeda gacmood inaan cuntada ugu diyaariyo shaqada guriga kalena inaan aniga qabto sababtoo ah middaas waqtiga ayaan ku luminayaa midda kaleeto arrimaha anaga khaaska noo ah ayaa haddii shaqaale imaado firaad maya aniga ayaana jecleen ma fahanteen sababta ugu weynaa waxay tahay waxyaalaha khaaskiidin ah in ay dadkiidinka ogaadaan maxaa yeele caruusada cusub ma ogolo arrimaheeda khaaska ah in la soo fargishto sidaas darteed ayaa anigana meeshaan iiga diraysaa laakiinse aniga middas ma ogolaanayo maxaa yeele waanba ka helaabo dadka isqabo dhan inaan laf dhungasho u noqdo waa bahoolahayga waxaas